fahamka qaab dhismeedka dawladda Soomaaliya ay isweydiisay cid go'aaminaysa arrimaha dalka yaa mas'uul ka ah amniga waxbarashada ama nadaafadda degmadaada si aan u fahanno waa in aan marka hore garanaa sida ay dawladda Soomaaliya u dhisan tahay Soomaaliya waa dal federaal ah taasoo macnaheedu yahay dawladdu waxay u qaybsan tahay 3 heer oo kala ah heerka koowaad waa dawladda federaalka oo qaabilsan arrimaha guud ee qaranka heerka labaad waa dawlad goboleedyada oo maamula adeegyada heer gobol heerka saddexaad waa degmooyinka iyo golayaasha deegaanka kuwaasi oo qaabilsan adeegyada muwaadiniinta ee heer degmo heer walba waxa uu leeyahay shaqo u gaar ah balse waa in ay wada shaqeeyaan haddii midkood uu shaqadiisa gudan waayana saameynta waxaa dareemaya muwaadin kasta tusaale haddii iskuul la dhisayo dawladda federaalku waxa ay dejisaa siyaasadda guud dawlad goboleedyaduna waxa uu hirgeliyaa siyaasaddaas degmada ayaana ka shaqaysa dhulka iyo kormeerka marka aad fahanto 3 heer waxa aad si sahlan u garanaysaa cid aad la hadlayso marka aad rabto in aad dareenkaaga iyo adeega ka maqan aad raadinaysid